weekly forecasting de waxaan isla hayay baan la wadaagaya asxaabta dhammaantood wax badan maaha qasab ma hayo wax badan laakiin kulli inta aan hayo ayaan la wadaagayaa insha Allah waxaan ka bilaabayaa DXY baan ka bilaabayaa DXY baan ka bilaabayaa DXY kulli waa ogeyno lacagtu indhoweyd ba hoos bay isaga socotay structure inaga hooseeyeen filan insha Allah in la gaadho marka hadda 4 hour bay sida ku tahay waxay ku jirtaa channelkaasi ku jirtaa correctionka marka insha Allah waxaan rajeynayaa DXY anigu sida aan ka sugayo in ay samayso hal move oo kora ay u dhaqaaqdo oo marka ay ka soo laabato barta ama ay ka soo laabato ama ay double top ka soo laabato labada mid gaadho hadii ba aanay ka soo laaban treatikeena yar marka DXY intaasaan ka sugaya marka confirmationka DXY aan ka helo intaas hoos u meel ka raadinayna chance hoosa marka waa inay kan ka soo laabato ugu badnaan halkaas marka sell chance bin ka raadinayna sell insha Allah ishaan ku haynayna euro USD baa soo hadhay euro USD iyadana qasab waxaan ka raadinaynaa buy chance bayaan ka sugayaa oo ay ku tag sida ugu socoto DXY ga cagsi ku tahay marka 4 hour aan geey 4 hour kamala qurux badan 1 2 3 ga way soo dhameysatay way dhaqaaqday haddana xagga sare ka soo laabatay marka waxaan ka sugayaa iyadana sidii aan ka sugayay DXY si lamida in ay one move double top ka timaado aan ka bacdi reversal ka raadsano labadaas oo halkaas tan waa USD CHF DXY la shaqeysaa iyadana waxaan ka sugayaa halkaas inay ka soo kala laabato DXY si ay u soo kala laabanayso oo sell base kaga sii socon doonta lacagtan insha Allah laakiin iyaduna waxay la jaatay lacagtaas marka waxaan iyada ka qaadan doonaa insha Allah lagaga trade gareyn doona DXY da confirmation ka aan ka helay dheeraadka ah waqtigana inaan soo koobaan isku dayaya insha Allah lacagtana waa lacagtii in badan aan sugaynay weegii hore isugday amino markaas waana mar horena u dhawaa Maxamed Geedi baan noo soo diray marka lacagtaas sidoo noogu adkeeyay aad bay lacagtan u qurux badnayd ilaa intaas oo dhan structure bayna soo siinaysay 9 rule-kaas aan ka sugaynay inka correction bas bayna samaysay 1 2 3 one more move baan noo haray tan hadda naga cuno calaamadaha iyo waxaan iska sii dhigtay anigu yeena idin qaldin and one more move correction yar ku jirta ba expanding channel buna waa ku jirtaa channel kale oo ku jirtaa halkan waa structure bay ku beegan tahay qurux badan dhac way soo dhacaysaa lacagtaas insha Allah waa NCD lacagtan waa AUD USD structure qurux badan bay samaysay oo cajiiba kan dalbay bixisay correction bay ku tagtay lacagtan wax walba everything way samaysay laakiin maadaama lacagtan in ay hagto lacagta on hour aan geeyo maadaama ay hagto lacagta USD waxba isku daalin min waxba laakiin wax qurux badan bay samaysay meeshii way tagtay ka soo laabatay xataa kan dhalka 4 hour ka ay bixisay correction bay ku jirtaa way soo dhacday laakiinse iyada waxba dadka kula tarin maayo inay qaataan asxaabta aan ka gudbo iyada ka gudbo
lacagtana waa NZD JPY. one more move koraan ka sugaya, one more move kora baan ka sugaya insha Allah sidaan u qaadan doono. one more move kora baan ka sugaya, dhaqaaq bay samaysay, correction bay ku jirtaa, double top correction lagu yimiday. marka lacagtaasna insha Allah iyadu markay kor tagto by high probability tahay oo la soo qaadan karaya. haddaba labada lacagood ee aan aad isha ugu hayo waa laba lacagood oo aan aad isha ugu hayo, waa lacagtan isha lagu wada hayay forecastingkii hore lasoo diray way ku jirtay ilaa wiigii hore. waa JPY CAD JPY, iyadu waxay samaysay structure qurux badan, way soo jabsatay, correction yar bay ku jirtaa. bas keliya lacagtan waxay inooga baahan tahay correctionka si chance macaana aan uga soo faa'iidaysano. intaasoo biib baa noogu jira, intaasoo biib baa noogu jira. lacag qurux badan weeye haddii ay chanceska aan ka helno. dee ilaa qiyaamahaad haysanaysa waad shaqaysaa dee ilaa 200 oo biib ku dhawaa. taasuna waa taa. waqtigana inaan soo kooban isku dayayaa, waxaaba ii hadhay lacagtan kalena waa CAD SGD. CAD SGD waxbaa idinka horreysiinayaa iyo CAD JPY. matafkan in geynayaa insha Allah. matafka waxay samaynayso baan geynayaa. sorry matafka iguma mataf waa kan. lacagtan waa CAD indexkii CAD waxay samaynaysaa wax structure qurux badan bay samaynaysaa CAD. waxay double top baan ka sugayay lacagtaas. marka double topkii intaan la gaadhin bay structure kale oo double topka in yar ka yara hooseeya oo qurux badan bay samaysatay. waxay samaysatay 1 2 3, waxay samaysatay double top kale, waxay ku tagtay correction 1 2 3 kale bay ku sii tagtay, wayna soo dhacday sida ay CAD JPY ba u soo dhacday. marka iminka CAD JPY waxay ku jirtaa correction. sidoo kale buuq baan yara dareemaya baan malinayaa, iga raalli ahaada. marka lacagtan waa 1 hour time frame. double topkii bay taabatay, candle bayna siisay, 3 touch bay noo buuxisay, isla markii waa soo dhacday, correction bay ku jirtaa, trend line-kan waa soo jabsanaysaa, 100 confirmation bayna siisay. marka CAD JPY shaki ma leh, markay tan soo jabsato CAD JPY-na correctionka ku jirto bac way soo jabsanaysaa, CAD JPY way soo jabsanaysaa, tanna sidoo kale way soo jabsanaysaa. CAD JPY CAD JPY baan nagu celinayaa. CAD JPY waa tan 30 minutes-kan ku geynayaa. correctionka ku jirto kale aan ku tusayaa macnaha waa correctionka dhac markay soo jabsato tanna saasay dhaqaaqaysaa. labada lacagood way ismaamulayaan. maxaa noo soo hadhay CAD SGD. CAD oo dhan dee sel baan ka raadinaya maadaama oo indexkii aan sel ka helay lacagaha CAD horeyso. waxaa kaloo jirtaa lacagta ah NZD CAD oo aan iyadana sel ka raadinayo iyadoo ay dambayso NZD-da. macna ma laha, waa lacagu markasta qasab maaha. lacag haddii sel laga helo in 7 beer ay ku jirto ama beerarkii ka horeyso oo dhan in ay sel soo wada aadaan qasab maaha. marba lacagta NZD-daba waa lacag, marba lacagta mid baa awood weyn. marka asxaabtii sidaa u ogaadaan, intii ogeydna waaba ogeyd. lacagtan weekly-gan jooga waa SGD CAD SGD-na ciddaan garanayn waa Singapore dollar weeye. waxay samaynaysaa weekly-ga waxay ka samaynaysaa 1 2 3 bay weekly-ga ka samaynaysaa. daily-ga haddaan imaado daily-gana waxay ka samaynaysaa 1 2 3. 4 hour-ka haddaan imaado
4 hour-ka waxay iyadana ka samaynaysaa sidoo kale 1 2 3 bay ka samaynaysaa iyadana 4 hour-ka madaxay la baxday candle bayna soo siisay 4 hour-kana waa kaas idinku muuqda expanding channel bay ku tagtay 1 2 3 gii waa kaas intaas madaxay la baxday inay intaa madaxa la baxdaysana oo iska ogeyno intaas oo kale hadda dhaqaaq bay samaysay dhaqaaqanay samaysay correction bay gashay dhaqaaqiyo kale un bay samaysay laakiin dailygo kale haddaad tagto waa week madaxa un bay la baxday way soo laabatay candleka waa lasoo wiiqay waxayna soo siisay way soo noqotay lacagta way soo dhacday hadda saan way kusoo dhacday 1 hour-kan idinka tusi doonaa waxay ku jirtaa correctionkaasay ku jirtaa correctionkan haddaan waxaan aan anigu saaranayo idin wareerinayo aniga bedelaya 15 minute-kan idin geniya flagga 15 minute-kan idin geniya waa flag iska ballaaran weeye laakiinse waa kaad indhigiskeedu suu flagga ugu jirayo kale weeye flaggiyo kale wax macnaa ma laha markay indhigiska kaadku flag uu ka baxo maatafna nageynaya flaggaas markuu waa flaggaas soo dhicitaanku lacagtu qasab maaha flaggu inuu isku si wada samaysmo laakiin lacagtan flagga markay ka soo baxdo SGD kaad down waa soo dhacaysaa flaggu qasab maaha inuu aad u qurux badnaado oo isku si ay u wada samaysmaan waxaan waa bahalkii isku xidhan inta badan anigu sidan aan u isticmaalaaba oo iskuma wareeriyo halkaasuu ka bilowday wiigana waa wiigan awalba ka tegay wiigan oo kale weeye wiigkaas oo kale weeye bes sidaasuu igaga dhammaystiran yahay aniga asxaabtan aad baan u salaamayaa hal lacag baan oo aan iigu jirin listadan kusoo darayaa asxaabtana waxaan kula talinayaa in lacag ay isha ku hayaan gold lacag ay isha ku hayaan mooyaane lacag kale iyo iskaa tusin intaad isha ku haysid ilaasho intaas baa kaa badan haday kuu dhaqaaqan jaanis kalead kasii helaysaa waxaan calaamadan iyo waxaan muhiimaha kala qaadaya goldi waa dailygan ku geynaya si aad usoo fahanto goldi guud ahaanba inta u dambeysaan kasoo sawiray wixii hore muhiim aha sal buu ku socdaa guud ahaan wuxuu soo sameeyey rejection wuxuu soo sameeyey nasashuu soo sameeyey correction bay kor kusoo aaday correctionkaas muu gaadhin tritouchka laakiin double topka aadka looga soo daatay buu tegey candle formation buuna siiyey intaasoo 100 oo biib buu soo daatay 400 oo biib mise 400 oo biib buu soo daatay 400 oo biib 400 oo biib ku dhawaad uu soo daatay mise kaba badanba 500 oo biib ku dhawaad soo daatay wuxuu ku jiraa hadda muxuu sameynayaa hadda wuxuu sameynayaa 1 2 3 buu sameynayaa dhaqaaq correction 1 2 3 giisi uu dhammaystiran yahay 4 hour-kan kugu celinayaa 4 hour-kan kugu celinayaa muxuu ku siinayaa candle ku siinayaa muxuu yahay candle qurux badan way formation lagu qaadan karo suuqun 9% hoos buu dhacayaa 10ka kalena halkaas uu ku noqon karaa laakiin guud ahaanba lacagtina waa sal guud ahaanba halkaas uu tagi karaa intuu jabsado oo isalka inaga dhufto ayuu halkaa tagi karaa ugu badnaan halkaa ama halkaas hadii kalena bartaa laakiin 9% candle-ku inuu siiyey suuqu jihadu ku soconayay meeshuu ka soo daatay dhaqaaqa correctionka tritouchka suuqan waxaa dhihi karaa hadeer uu entry jooga right now uu entry jooga ugu yaraan 700 oo biib soo daadanaya insha Allah